guddida joogtada ee maamulka iyo sharciyada golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa qiimeyn ku sameeyay warbixinta waxqabadka rubuca koowaad ee maxkamadda guud ee sanad miisaaniyeedka 2018 guddiga ayaa loo soo jeediyay warbixinta waxqabadka rubuca koowaad iyo qorshaha rubuca labaad ee maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida soo jeedin kadibna guddigu waxay qiimeeyeen warbixinta waxqabadka rubuclaha ah iyagoo sidoo kalena su'aalo ka weydiiyay mas'uuliyiinta gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda guud mudane Cabdikariin Axmed Maxamuud oo ka jawaabay su'aalihii guddiga ayaa soo kale faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dhammaan soo jeedinadii ay xubnaha guddigu u soo jeediyeen maxkamadda guud dhinaca kale guddigu waxay bogaadiyeen sida habboon ay u fuliyeen qorshaha rubuca koowaad iyagoo sidoo kalena ku booriyey sida qorshuhu yahay in la fuliyo shaqooyinka rubuca labaad gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda guud ee deegaanka Soomaalida oo markuu soo dhammaaday qiimeyntani aan waraysi la yeelanay ayaa waxa hadaladiis ka mid ahaa marka qorshaha ay u socdeen wuxuu ahaa inay u kurgalaan habka adeeg bixinta maxkamadda guud iyo hay'adda garsoorka si guud ah u socdaan inay u kurgalaan wixii talooyin ay soo ururiyeen intii kormeerka ay ku jireen inay mas'uuliyiinta ama cidda ay khusaysa ee maxkamadda guud inay u soo jeediyaan si jawaab looga bixiyo si guud waxaan iskula soo qaadnay qorshihii koowaad ee 2018 wixii anaga noo qabsoomay wixii dhaliila ka jira xaggayaga waxaan isla soo qaadnay oo kale shaha 2018 rubiciisa labaad noo yaala habka ay wax noogu qabsoomi doonaan jihada aan wadno si fiican baan iskula qaadanay wixii talooyin ahaa ee ay noo soo biiriyeen anaguna waan qaadanay oo gash baan ka dhignaa laga bilaabo rubuca labaad ee 2018 intii ay kormeerka wadeenna ama hay'adaha kala ha wadaan ama gobollada iyo degmooyinka ha wadaan gashiyadii iyo talooyinkii annagana khusayay ka maxkamad ahaan ee ay noo soo jeediyeen waan ka qaadanay waqti dhow gudaheeda haddii alla ka dhigo jawaabo cad oo official ah baan ka bixin doonaa si guud xiriirka saakana dhexmaray golaha xildhibaanada guddiga joogtada ah wuxuu ahaa mid fiican oo miro dhala oo aan shaqooyinkayaga gashi noogu noqonaya wixii haysan aan ku sii xoojinayno wixii u baahan tiirin ama tusaale ama tala bixin u baahanna iyaga xaggooda waan ka qaadanay si guud markaan isku beedno rubuca labaad 2018 rubuca koowaad inuu ka wanaagsanaan doono ayaan rajaynaynaa haddii alla ka dhigo dhankiisa xildhibaan Cabdi Ibraahim oo ka mid ah guddigan joogtada ah ee maalmihii u dambeeyay ku jiray shaqada qiimeynta ah ayaa sheegay inay soo gabagabeeyeen shaqadoodii qiimeynta ee xafiisyada heer degan ay ku qiimeynayeen waxaana hadalladiisa ka mid ahaa toddobaadkan waxaan kormeer ku maraynay xafiisyada guddiga uu kormeero guddiga arrimaha sharciyada ee maamulka ayaan toddobaadkan wadnay kulley ujeeddada kormeerkana waxaa weeyaan waa rubuc kasta maxaan ku dhahay kormeerka waan samaynaa heer deegaan heer gobol heer degmo kolka rubucan waa rubucii maxaan ku dhahay kormeeraynay xafiisyada heer deegaan ee guddiga kormeero ujeeddada kormeerkuna inta badan waxaa weeyaan in wixii maxaan ku dhahay wanaagsan ee la arko xilliga kormeerka in la bogaadiyo wixii maxaan ku dhahay khaldanna maxaan sixitaan laga sameeyo ujeeddada kormeerku intaan buu u badan yahay maanta waxaan kormeer ku imaanay xafiisyadii maxaan ku dhahay toddobaadkan aan wadnay maanta waxaa noogu dambeysay oo kormeerka kusoo gabagabeynay booqashadii maxkamadda guud aan kusoo booqanay maxaan ku dhahay xafiiskooda run ahaantii maxaan ku dhahay maanta booqashadan ku nimaanay maxkamadda guud waxay noo soo jeediyeen warbixintii rubuca koowaad maxaan ku dhahay waxyaabihii u qabsoomay sidoo kaleeto waxay aan soo kormeernay waaxaha kala duwan iyo environmentiga maxaan ku dhahay ama maxkamadda guud gudaheeda aan soo kormeernay waxyaabihii bogaadinta mudnaa intii aan kormeerka ama warbixinta noo soo jeedinayeen waxaa ka mid ah haddaan maxaan ku dhahay wax ka xuso maxkamadda guud oo bey'ada ama maxaan ku dhahay environmentiga ku shaqaynayso wax badan laga bedelay oo hadday tahay maxaan ku dhahay qaybta greeneryga hadday tahay maxaan ku dhahay hoolasha kala duwan sidoo kale waaxaha qalabkii ay u baahnayeen wax badan baa laga bedelay anigana bey'ada ee maxkamadda ku shaqayso sidoo kale waxyaabaha maxaan ku dhahay bogaadinta mudan waxaa ka mid ahaa casriyeynta maxaan ku dhahay waaxaha adeeg bixintooda in la casriyeeyo oo waag hore si manual ah ama hardhi koob baa lagu shaqayn jiray laakiin inta badan waaxaha muhiimka ee maxkamadda guud maxaan ay ka kooban tahay si digital ay u shaqeeyaan oo sidii manualka waa laga guuray taana bogaadin ay doon tahay waxaan dhihi karaa kulli in muddo ah hadda dhowrkii sano ee aan maxaan ku dhahay guddigan maxaan uu kormeerka ku ibaanayay waxyaabo badan oo isbedel oo xagga shuruucda hirgelinta iyo ku dhaqanka shuruucda maxaan ku dhahay wax badan baa iska bedelay ayaan dhihi karaa oo isbedel fiican ayaa ka jira inahaas waa inaha bogaadinta mudan muddadii kormeerkan ku jirnay toddobaadkan wixii dhaliilan u aragnay maxaan ku dhahay maxkamadaha khuseeya xafiisyadii kaleete ee bahwadaagta ay maxkamadu ahaayeen aan ku soo aragnay ayagaan la wadaagnay maxaan ku dhahay maamulka maxkamadda guud ayaguna waxay ballan qaadeen in ay sixi doonaan kulley kormeerkan maanta intaas ku qabnay aad baad mahadsantihiin